هذا iyaga madaxa isugu dhufan wallahi inay waxba inoo soconay baa la taagan yahay anigu oday qaran baan ahay ee oday qabiil ma ihi laakiin maanta de kul hadii halkan la igu marti qaaday khasab bay noqotay inaan ka soo qayb galo meel aad iyo aad u wanaagsan buu maanta dalkeen iyo dawladdeenu u maraysaa مثل يربان كسو قاضية كوني سقال بقول سقاشن يسد حدي مدح وينه سلطان محمد سلطان فارح جيسي اسرم تاها اس صلادين تيساق كوكاها مالنتو صوتو عيدن كي صنعاني waxa laga qarameeyay shan tignika iyo boqol xeelada birjeex baanu geynay oo la wareegnay qada loo waayay qamadi loo kariyo ayaa loo waayay maanta 6,000 oo askari baa la qarameeyay hubkoodii saaradoodii iyo saadkoogii iyo labiskoogiiba fartaa laga saaray horumarka aynu intaa ku talaabsanay ayay ka markhaati tahay waxaynu maraynaa runta kolkaynu isu sheegno hunu hadal maaha himbiriirsina wax arag maaha baa la yidhi runta markaynu isu sheegno waxaynu maraynaa meel xasaasi aynu maraynaa dagaal baa inagu socda weerar baa inagu socda kuwii aynu ka soo qaadanay xorrimadeena kala soo noqonnay habeen walba talaabay soo qaadayaan dhinac walba layna tijaabi bari iyo galbeedba laynaga soo gal wali Somaliland waa strong tactically way bedelantay hadda waxa la marayaa beesha isaaq oo la gala mooyaan waxba inoo socon maayaan waxa la yidhi lafa maroodi iyaga la isku jabiyaa dawladuna iyaga ay ka taagan tahay hadda inaan iyaga madaxa isugu dhufan wallahi inay waxba inoo soconay baa la taagan yahay inaguna halkanaynu googa igalays iyo media inta aynu muxuu dhageysano ayaynu muxuu ahaa maalin walba isku siganaynaa maalin walba waa isku siganaynaa si aynu uga midho dhalino gobanimadeeni halkay marayso oo ilaahay fadligii iyo dadaalka madaxweyne ay ku timid aqoonsigii si aynu uga midho dhalino waxa loo baahan yahay inaynu difaaca qaranka isu taagno ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay inaynu ka baxno is-aragga hoosteena waxa yaree yaala aynaan maalin walba ku buuqin madaxweyne nasiib wanaagsan baad leedahay 35 sano ayaynu soo guulaynaynay ilaahay baa ku soo dhiibay magicii muxuu ahaa aqoonsiga maanta ka inaynu ku mitidno ayaa laga maarmaana dadweynaha Somaliland beeshan oo kaliya ma hadli mayno dadweynaha Somaliland baan la hadlaynaa iyo intii inay ka madha dhaliso dawladnimadeena diyaarka u ah